السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. qodobada warka duhur aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah golaha dhalinyarada Jubbaland oo maanta qabtay munaasabad lagu xusayay 15ka May. madasha dhalinyarada Kalsan oo qabatay kulan lagu dhiirigelinayay dhalinyarada haldoorka ah ee Jubbaland. madaxweynaha Jabuuti oo markii shanaad maanta lagu caleemo saarayay Jabuuti. gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo ka digay fatahaadda webiga Shabeelle oo ku sameeyay Beledweyne. Shiinaha waxyaabaha Soomaaliya u soo diray markab ilaaliya maraakiibta ganacsiga. ciidanka Puntland oo gacanta ku dhigay nin hubaysan oo dil geystay. wararka dibaddana waxaa kamid ah ergey ka socda Mareykanka oo Israel gaaray. waa kuma warwageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba radio Kismaayo ka dhagayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan وهاجاج مركز كسر نقد وناكسنا ينهود هذين كلنا هيدا جستيالا وعشاني طبعاً بيش السنة ماي سنة الله وذو كون يو كوي لبعتنكا warka duhur waxa halkan idin kala socodsiinaya aniga waa Kamal Maxamed Axmed Keenan. haatan u diyaar garow dhageystayaal dhageysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. golaha dhalinyarada Jubbaland ayaa maanta qabtay munaasabad lagu xusayo 15ka May. Maxamuud Cali Xasan ayaa faahfaahinaya warkan. guddoonka dhalinyarada Jubbaland oo ay ugu horeeyaan Axmed Maxamed Taqal iyo Abaadir Cabdiraxmaan Beeshi ayaa maanta waxa ay ka hadleen munaasabadda sanad guurada 78 ee asaaskii ururka xornimada Soomaaliya ee SYL. guddoonka ayaana ugu hambalyeeyay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maalintan qiimaha badan ee 15ka May oo ah maalin sanad walba la xuso sanad guuradii 78 ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay ururka xornimada Soomaaliyeed ee SYL. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. waxaan leeyahay hambalyo sanad guuradii 78 ee asaaskii dhalinyarada SYL. waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hambalyo gaar ahaan dhalinyarada reer Jubbaland. runtii waa maalin ugu weyn haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada reer Jubbaland inaan maanta xusno maalintii dhalinyarada Soomaaliyeed SYL. runtii in la iska xuso dhalinyarada Soomaaliyeed SYL macna ma sheegayso laakiin waxa muhiim ah waxay qabteen oo kale inaan tusaale ay maartay aan ka dhigano oo ficil u bedelno. run ahaantii sidii awal aan u qaban jirnay hadda waxba ka bedelan sababtoo ah xilliga ayaa maartay mushkilad keenay oo cudurkii xumaa ee COVID-19 waa sabab gareeyay inaan xaflada iyo maartay weynen maalinkaas aan ku muujinayno aan u sameyn weyno. haddana si walba aan maanta aan ku xusi karno waa diyaar baan u nahay. runtii waa barnaamij marka aan isleeyahay maalinta oo kale inay tahay maalin dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaanba ku wada weyn guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna ku wada weyn maadaama ay yihiin 13kii dhalinyaro SYL gobonimada dalka Soomaaliya u horseeday maalintoodii ay tahay. marka bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan waa noogu hambalyeynaa. runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ugu hambalyeeyo shacabka Soomaaliyeed xuska SYL. maanta waxaan u taaganahay maalintii 15aad 15ka May. waa maalintii dhalinyarada gaar ahaan maalintii la aasaasay ururka SYL dhalinyarada Soomaaliyeed. sanad guuradoodii maanta waxaa ka soo wareegatay 78aad. waxaan rabaa marka inaan hambalyo u diro dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel allaale meeshay joogaan gaar ahaan dhalinyarada reer Jubbaland. reer Kismaayo ayagana dhalinyarada joogta aad baan ugu hambalyeynaya si qaas ah. waxaa muhiim ah SYL maadaama maanta la xusaayo annagana waa gaari doonaa waqtigeeda in la xuso haddaan nahay dhalinyarada Jubbaland qaasatan reer Kismaayo. بسم الله مجاعي وانا ذي فحسن إن همبليو أيان لا هاي دلنيرة الصوماليات ميل بيجوان قصة دلنيرة الجبلان قصة دلنيرة ريك اسمعوا وحن لا همبليو ما أنت دلنيرة عشان يتبون كمي وحن همبليو لقيف سنة يا أمد الصوماليات قصة دلنيرة وحن لا همبليو دلنيرة إن هي دلنيرة وحن عشان يتبون كمي ما أنت دلنيرة SYL
in maxay ahayd lagu daydo waa dhalinyaro maxay ahayd qudayasho mudan waa dhalinyaro soo halgantay iskaga daya ma ahayd dhalinyaradana hadda reer Jubbaland maanta waxay marayaan meel maxay ahayd meesha ugu sareysay waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed hambalyo 78 sano ka hor ayay 13 dhalinyaro Soomaaliyeed aasaaseen ururkii SYL oo doorka ugu weyn ku lahaa in dalkaynu hanto xornimada aan maanta harsanayno dhalinyaradii Soomaaliyeed ee xornimada horseeday waxay Soomaaliya dhaxal siiyeen taariikh mug weyn oo ifaysa iyo tusaale Soomaalinimo xornimadii dalka ka hor iyo kadib si weyn ayuu u muuqdaa doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee nolosha qaybaheeda kala duwan siba difaaca dalka iyo hawlaha qaranka ee muhiimka ah Maxamuud Cali Xasan warbaahinta Jubbaland magaalada Kismaayo madasha dhalinyarada Kalsan ayaa qabatay kulan lagu dhiirigelinayay dhalinyarada haldoorka ee Jubbaland Maxamuud Saciid Axmed Fawzi ayaa inoo eegaya warbixinta warkan madasha isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kalsan ayaa waxa ay qabatay barnaamij lagu dhiirigelinayo dhalinyarada haldoorka u ah bulshada ee ku nool magaalada Kismaayo munaasabadani ay soo qaban qaabisay madasha Kalsan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socota dawlad goboleedka Jubbaland barnaamijkan lagu dhiirigelinayo dhalinyarada ayaa waxa qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Kismaayo lagu siiyay abaalmarin halka warbaahinta ka shaqeysa deegaanada Jubbaland sidoo kalena la siiyay abaalmarin xildhibaan Xasan Cabdi Xasan Yare oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo ugu horeyn madasha ka hadlay ayaa ku amaanay dhalinyarada meesha isugu timid shaqooyinka wanaagsan ay u hayaan bulshada inta hadda aan fadhiyay aan ka qayb galay wax badan ayaa iga waxyaabaha iga baxay waxaa ka mid ah sidaas ugu faraxsan tihiin sidaa u kaftamaysaan sidaa mustaqbalkiina uga hadlaysaan sidaa u tihiin hogaamintii maanta iyo hogaamintii berri oo u tihiin taas waxay farax gelinaysaa dhammaan in future fiican ay leedahay Jubbaland ay dhiirigelinaysaa in dhalinyaro intaan la eg oo qaarkood wasaaradaha ay ka shaqeeyaan oo qaarkood hay'adaha ay ka shaqeeyaan oo qaarkood civil society ay ka shaqeeyaan oo qaarkood ganacsato ay yihiin qaarkood aqoon-yahano ay yihiin qaarkood culimo ay yihiin in maanta macnaha kulankan inta isugu imaaday la wada kaftamayo musaabaqo tartan la sameynayo su'aalo la isweydiinayo future ah waxaas oo dhan waxay muujinaysaa biseelka ay gaarteen meel walbana ma taalo amniga maanta waxa uu muhiimsan aan haysano magaaladan hadda aan joogno lagu haysto oo galabta aan xeebta liida aan ku soo wada kafay cabayna aniga rag badan saaxiibo aan nahay oo xildhibaano federaal ah heer dawlad goboleedba iyo dhalinyaro aan kusoo galabta kusoo casriyeynay malaha magaalooyin badan oo Soomaaliya ka mid agaasimaha TV-ga Jubbaland Cabdiraxmaan Mustafa Maxamed oo la gudoomay shahaado sharaf loogu talagalay Jubbaland TV ayaa uga mahadceliyay madasha Kalsan shahaadada ay gudoonsiiyeen waxaana ku amaanayaa runtii dadkii soo agaasimay xafladan oo ay Aamina iyo tiimkeeda ugu horeeyaan sida ay isugu xilqaameen in bulshada ay dhiirigeliyaan mid ka mid ah tiirarkii madashan ay sheegtay Aamina in ay ka jirto 15 gobol oo dalkeena ka mid ah mid ka mid ah tiirarka aasaaska waxaa ka mid ah tiri inaan dhiirigelino dhalinyarada wacyi gelinana bulshada horumarka iyo wax wada qabsigana lagu dhiirigeliyo waxa ugu fiican ee asset ah ee ay dadku haystaan ay ku faani karaan waxay tahay in bulshadii ayada ay isdhiirigeliso dadka ururada bulshada rayidka ah dhalinyaradu ay hogaamiso waa dadka mar walba energy-ga u ah horumarka iyo horusocodka dadkaas markii aad doonayso inaad halbeeg saarto bulsho horumarka ay ku tallaabsanayso ama mustaqbalkeeda prediction lagu sameeyo lama fiiriyo wax inta ganacsi ay haysato iyo inta dhaqaale ah iyo inta warshadooda u shaqeynay laakiin waxaa la fiiriyaa daayarteeda iyo dhalinyaradeedu siday u fikirayso iyo waxa ay ku faanayaan ama ku taamayaan ugu dambeyntii gudoomiyaha madasha isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kalsan Aamina Cabdi Cali Aamino Sharaf oo ugu dambeyntii madasha soo xirtay ayaa uga mahadcelisay marti sharafta ka soo qayb gashay kulanka sida wanaagsan ay u soo xaadireen
waa idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad u soo ajiibteen codsiganagii ahaa inaad nagala soo qayb gashaan barnaamijka Lacawe madasha Kalsan oo aan caaw ugu talagalay inaan kaga hadalno dhowr qodob kuna dhiirigelino dad hal door waa bulshadeena wax qabadkoodana uu muuqday laakiin aan la arag macnaha inuu soo jeedin ama dawladda ama ganacsatada bulshadeena mar walbana qofka wax qabtay waa in aan dhiirigelinaa si uu hore ugu socdaa oo aan dhahnaa waa dadaashay hore u soco intaa kadib madasha Kalsan waxaa la aasaasay 2017 hadafkeeduna wuxuu ahaa in la helo dhalinyaro mid ah oo ku mideysan magaca Soomaali weyn madashu waxay ka samaysan tahay 15 gobol oo Soomaaliya ka mid ah Kismaayo waxaan filayaa wax qabadkeeda in badan oo ka mid ah in ay ka dheregsan yihiin oo ay arkeen madashu waxyaalaha ay qabato waxaa ka mid ah dhiirigelinta wacyigelinta waxbarashada iyo in ay ka qayb qaadato horumarka bulshada dhan walba uu yahay caaw waxaan u joogno waa dhiirigelin macnaha waxay ka mid tahay qodobada aasaaska waa madasha in lagu dhiirigeliyo bulshadeena dadka wax qabtay in aan ka wacyigelino waxyaalaha halista iyo riskiga u keeni kara ee bulshadeena maxamuud Saciid Axmed idaacadda radio Kismaayo codka dawlad goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo dhinaca kalena madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa markii shanaad maanta lagu caleema saaraya magaalada Djibouti ee dalka Djibouti Cabdirsaaq Al Cabdullaahi ayaa faafahinaya madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta Sabtida 15 bisha May 2021 lagu caleema saaraya caasimadda dalkaasi sida uu shaaciyay guddiga madaxtooyada u xil saartay qabanqaabada munaasabadda dhanka Soomaaliya waxaa ka qayb galaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya iyo wafdi wasiir ah oo Jimcihii Muqdisho ka raacay maadaama uu qaabilay madaxweynaha madaxweyneedkiisa u dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doorashada ka dhacday Djibouti 10 bishii Abriil sanada 2021 waxaa markii shanaad oo xiriir ah ku guuleystay Ismaaciil Cumar Geelle oo helay codadan in ka badan 98 cod waxaana ay tirada xoojisay in uu xafiiska sii joogo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxa uu madaxweynaha Djibouti noqday 1999 waxaana uu dalkaasi u horseeday wax qabad muuqda isbedel ganacsi iyo isdhexgal bulsho gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa ka digay fatahaada webiga Shabeelle oo ku sameynayo magaalada Beledweyne Amaal Cawil Maxamuud ayaa inoo soo koobaysa warbixintan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Cusmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laga soo wacay gobolka Shabeelle ee dhulka Soomaali galbeed laguna wargeliyay in biyo xooggan ay soo raaceen webiga Shabeelle si ay u sameeyaan feejignaan Jeete ayaa muujiyay walwal la xiriira in uu karkaarada jabsan karo webiga Shabeelle marka biyaha ku soo darsamay ay soo gaaraan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dhowr jeer uu ku fatahay waxa aan reer Hiiraan ama reer Beledweyne ku wargelinayaa xiriir uu nala sameeyay gudoomiyaha gobolka Shiinaha ayaa xeebaha Soomaaliya u soo diray markab ilaaliya maraakiibta ganacsiga Cabdirsaaq Maxamed Sheekh Siraad Wadani ayaa qodobareedkan inoo eegaya dowladda Shiinaha ayaa markabkii 38aad oo ay la socdaan ciidamada xoreynta badda ee loo yaqaano BLA ayaa sabtida maanta 15 May ee sanada 2021 u soo dirtay xeebaha Soomaaliya si ay u gudbiyaan maraakiibta rayidka markabka ayaa ka soo shiraacday tekada Hawshan ee gaarka ah militariga Shiinaha ee gobolka Hiijaan waxaana dul saaran diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helicopters gantaalada wax burburiya iyo doomo nooca dheereeya waxa ayna ka howlgalayaan gacanka cadmeed iyo biyaha Soomaaliya si ay u gudbiyaan maraakiibta rayidka ee adeegyada ganacsiga isaga kala gudub dalalka iyo qaaradaha kala duwan ee caalamka kordhinta howlgalka Shiinaha ayaa yimi kadib markii cabsi ay soo wajahday inkastoo aysan sheegin xukuumadda Beijing halka walwalka uu ka yimi iyo meesha ay ka helayaan fariinta ku qasabtay soo dirista markabkan xambaarsan agabkan military waa howlgalkii ugu ballaarnaa ee jamhuuriyadda shacabka Shiinaha ay ka fuliso Soomaaliya tan iyo December sanadii 2008
oo uu soo bilowday howlgalkoodii biyaha soomaaliya iyo badda caalamiga waxaana xilligaasi xawaare ku socday awoodda burcadbadeeda soomaalida. ciidanka puntland ayaa gacanta kusoo dhigay nin hubaysan oo dil geystay. raaxa maxamed cabdi ayaa faahfaahinaysa. ciidanka booliska nugaal ee dowlad goboleedka puntland ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal qorshaysan ka sameeyey magaalada garowe ee caasimada maamulkaas iyagoona kusoo qabtay nin hubaysan. taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal gaashaanle sare maxamed aadan jaamac ayaa sheegay in howlgalka lagu soo qabtay nin hubaysan oo shalay qof shacab ah si bareer ah ku dilay gudaha magaalada garowe. taliye maxamed aadan ayaa ninka gacanta ku soo dhigay magaciisana ku sheegay cabdiraxmaan maxamed cabdi kaasi oo lagu xiray saldhigga ciidanka isla markaana ay baaritaano kala duwan ay ku wadaan laamaha amniga ee puntland. sidoo kale ninka toogashada lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray maxamed muuse faarax oo ka mid ah dadka deegaanka magaalada garowe. inkastoo taliska booliska nugaal uusan faahfaahin ka bixin sababta keentay in uu dhaco falkaas. taliye ku-xigeenka saldhigga gobolka cabdulaahi cabdi cilmi boyax oo ka mid ah saraakiisha soo qabatay cabdiraxmaan maxamed ayaa sheegay in wixii warbaahin ah ay ka soo gudbin doonaan. وهاجاك halkaad warkaasi kala socotaan dhageystayaal oo idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland. markaan intaan u guda gelin wararka dibadda waxaad ku soo dhawaataan xubinta ciyaaraha ee warka duhur waxaana la diyaaraha duhurnimadan Ismaaciil Cali Cabdi Kamal Kenan. kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha ee warka aan ku hormaro inta aanan gelin kulanka weyn ee la wada sugaya caawa 5 saac iyo rubiga dhaxmari doona kooxaha Chelsea iyo Leicester City laakiin waxaa ka horeeya kulan soo gali doona wax ka yar nus saac ama saacad waxaana wada dheeli doona 8 daqiiqo kooxda Burnley iyo Leeds United halka Southampton iyo Fulham na ay wada dheeli doonaan 11 habeenimo. dhanka kale caaw waxaa la dheeli doonaa finaalka koobka faca weyn ee boqortooyada Ingiriiska waana FA Cup-ka waxaana iskaga hor imaan doona kooxaha Chelsea iyo Leicester City. kooxaha Chelsea iyo Leicester City ayaa iskaga hor imaan doona kulanka finaalka FA Cup-ka kaas oo ka dhici doona garoonka Wembley ee waqooyiga London. Chelsea ayaa kulankani soo galaysa ayagoo ku guuleysan kara koobkii ugu horeeyay xilli ciyaareedkani. dhanka kale kooxda Leicester City ayaa kulankani soo galaya ayaga oo isha ku haya in ay ku guuleystaan FA Cup-ka markii ugu horeysay taariikhda. kulankani ayaa noqon doona midkii 140aad ee FA Cup-ka iyadoo ay kooxaha Chelsea iyo Leicester ay noqon doonaan kooxihii 117aad ee isaga hor imaada finaalka FA Cup-ka. kulankani ayaa noqon doona finaalkii 5aad ee Leicester City ee FA Cup-ka iyo midkoodii ugu horeeyay tan iyo 1969 laakiin Leicester City ayaan dhammaan Leicester City ayaa dhammaan laga qaaday finaalkii ugu horeeyay ayuu noqon doonaa kana waxay la dheeli doontaa kooxda Chelsea oo ah koox aad u xoog badan kana dheesho waqooyiga London. marka la anigu celiyo qaybaha dhiman ee warka Kamal Kenan. markan wararka dibadda ergey ka socda Mareykanka ayaa gaaray magaalada Tel Aviv si uu bilaabo wada hadallo ku aadan joojinta dagaalka sii socda ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Falastiin. Hadi Amar waxa uu la kulmi doonaa dhinacyada Israa'iil iyo Falastiin iyo saraakiisha qaramada midoobay iyadoo laga rajo qabo in la gaaro heshiis xabad joojina. militariga Israa'iil ayaa duqeymo saaka ka fuliyay marinka Gaza halka dagaalyahanada Falastiiniyiintana ay gantaalo ku garaaceen Israa'iil. warkii duuraad kala socoteen idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland xilligan waa nageynta.